gudoomiye shaatax uu mahadsan yahay haddii aad u fiirsatay go'aamada aan soo saarnay bayskoodu waxa weeye canshuurta waa inay wasaaradda maaliyaddu jaangoyso ogolaato authorize garayso qasnada dawladdana lacagta ku dhacdo haddii ay dhacdo shirkado intaas ka baxsan oo wax sharci darraha ku shaqeeya waan de sharciga la marsiina laakiin annagu wixii ay ka calacaleen oo dhan oo 9 qodob ayay ahayd intay soo jeediyeen ganacsatadu oo ay ka sheeganayeen oo ay ugu dambeysay in 2 canshuur la qaadayo oo mid marka laga soo qaado xagga baabuurka haddana ex control mid kale lagu qaaday dhammaan waxaasoo dhan wax xaqnay waxaan dhahnay waxba kama jiraan heshiisyaan burinay oo aan dhahnay waxba kama jiraan oo shirkada la galay waxaan filayaa haddaad dib u akhriso warkaasi waa cad yahay arrinta ku saabsan baarlamaanka lama marin heshiisyada qaarkood heshiisyada waa marinay muhiimka ahaa sida turkiga oo kale waa marinay baarlamaanka maxaan ku dhahaa heshiisyadii waaweynaa heshiisyada qaarna waa heshiisyo ay wasaarad la gasho oo ka fudud midka ajendaha nationalka awata midna waa mid ajenda national awata wax alla wixii nagu waajibiyey dastuurku inaan geyno baarlamaanka waa waxaan geynay iyo waxaan usii wadno waay marka heshiisyo gaar oo qarsoodi ah oo aan dawlad la galayno ma jiraan walaalkay dalmar uu mahadsan yahay waan uga mahadcelinayaa inuu yimid meeshaan inta timid unbuuna la mid yahay wax uu kaga bedelan yahay ma jirto dhalinyarada timid buu la mid yahay marka wuu mahadsan yahay naafa ha ahaado laakiin naafanimadiisu ma keenayso inuusan imaanin ma keenayso iyagoo naafaha ayay madax ahaayeen madaxna yihiin waxaan rabaa inaan sheego dee inagu dalkaynu ka hadlayno dalmarow waynu naqaanaa tabarteenna waa naqaanaa awooddeenna waa naqaanaa been baan kuu sheegayaa haddaan ku idhaahdo wax walbaba overnight baa lagu shaqaalaysiinayaa intaa la marayaa waxaan jirin inaan kuu sheega ma rabo inta shaqaalaysiinteennu ay korayso aad bay u yar tahay intaan shaqaalaysiinaa way yar tahay inkastoon dadaalay oo aan ilaa 6,000 oo macallin keennay oo aan tobanaan aan dhaho dee kumanaan dhalinyaro aan ciidamo u qorannay oo ay maxaan ku dhahaa dawladdu ay tababarto qalabayso mushaarkooda iyo garaamyadooda wax oo dhan siisay inkastoo aan ambitious nahay oo aragti dheer leenahay oo wax kale aan raadinayno aad u doonayno laakiin shaqaalaysiinta dhalinyaradeenna aad bay u yar tahay wayna kooban tahay waxaana keenaya duruufteenna oo ay ta amniga ugu horeyso horey baan anigu dhalinyarada u sheego waxaan dhahay qofka dhalinyarada wuxuu u baahan yahay aqoon iyo shaqo marka waxaan u malaynayaa dhowr jeer oo dhalinyarada la hadlay waxaan ku yidhi shabaabka dalka igala xoreeya anigana shaqo i weydiiye marka haddii shabaab aan isdhaafinno waxaan kuu hubaa adiga iyo inta la midka iyo kuwa kaleba in dalkeenu uu ka badan yahay shaqaalehena ka badan yihiin waxaanan xoogga saarnay runtii inaan dadka nugul Soomaaliyeed inaan wax ka qabanno arinta IDPska oo aad ogtihiin inaan hawl weyn ka diyaarino oo aan rabno hadii ilaahdo sanadka insha Allah 2025 ugu yaraan 1 milyan oo Soomaaliya oo ilaa Somaliland ay ku jirto ayaan ka saari doonaa hadii ilaahdo IDP iyo noloshooda ay ku nool yihiin oo nu bedeli doonaa noloshooda nolol caadi hadii ilaahdo idinka waxaan maalin hadda waxaan ansixinay sharciyadii taageerayay caruurta sharciyadii xuquuqda caruurta iyo da'yarta iyo kii ugu dambeeyay oo ah sharciga ama hindis sharciyeedka xuquuqda dadka naafada ah oo aan ansixinay oo baarlamaankuna ansixiyay oo haddeertan aan rajaynayo insha Allah in sharcigaasi uu fari doono xukuumadda iyo dawladda iyo shacabka Soomaaliyeedba in naafada si gaar ah xuquuqdooda ay u helaan waxaan ka ballan qaadayaa in mar walba aad qadiyadiinu ay hortaalo mar walbana aan ka fakarayo waana ka fakara ilaahay idankiisna waxaan rajaynayaa dadka naafada ahi wixii shaqaalaha ee soo kordha inaan qayb
aan ka siino haddii ilaahay yidhaahdo waana ku ballan qaadi doonaa haddii ilaahay yidhaahdo sheekh Sanuun aad iyo aad baad u mahadsan tahay walaashay gobolka banaadir waxa waaye canshuurta iyo gobolka banaadir طبعا culays badan buu hayaa dawladii Soomaaliyeed iyo qarankii Soomaaliyeed oo dhan ba dul degan dhibaatada ugu waaweyn haday qaraxeen noqotay hadii amni darro noqotay ba iyada oo dawladnimada Soomaaliyeed laga dagaalamo caasimada ay tahay oo laga dagaalamay cadow oo dhan ayaa runtii dadkeeda dhibaato fara badan ayuu soo gaaray dawladnimada dadka reer Muqdisho price bay u hureen way ku mahadsan yihiin aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waxaan ku sheegayaa hadii ay dawladii hore ahayd xataa xooga badneed ee militariga ba Muqdisho laga biili jiray dadka oo dhan meesha bay degan yihiin hantidii ummadda Soomaaliyeedna halkan bay taalaa shacabka Soomaaliyeed 3 milyan over 3 milyan lagu tilmaamana halkan bay degan yihiin dawladii Soomaaliyeedna way degan yihiin oo aan dib u wadin barakaadkeeda kala wadatana ayadana waa degan tahay marka gobolka Banaadir culayskaas waa haya waan qiraya laakiin micnaheedu ma aha in gobolka Banaadir kaliya canshuur laga qaado waa dawladda Soomaaliyeed gobolka Banaadir kuma eka dawlad goboleedyada jira dawladda Soomaaliyeed bay kamid yihiin canshuuray qaadaan amnigay sugaan dadkay shaqaaleysiiyaan infrastructures bay dhisaan dawladihii waaye marka waa inaad ogaato yani waxa waaye kuwa dawlad goboleedyada laga qaadana qasnada dawladda kuma soo dhacdo laakiin dad Soomaaliyeed iyo dawladii Soomaaliyeed qaybaheedii ayaa ayaguna amnigeedii iyo adeegeedii iyo maxaan ku dhahaa kaabayaashaadii dhaqaalaha lagaga shaqeeyay ma aha meelaha kale in iska fadhiyaan qudhoodu ma aha marka waxaan leeyahay isma diidayaan waxaan rajaynayaa oo aan anagu ku dadaalaynaa insha Allah in customiska la mideeyo iyo in ay canshuuruhu ay mid noqdaan oo dadka Soomaaliyeed oo dhan ay u sinaadaan wax walba waan rajaynaynaa insha Allah waan soo wadnaa